Assalaamu calaykum. Barnaamijkeenan waxaan kaga hadli doonaa cuntooyinka ugu wanaagsan oo ah 20 cunto iyo in ka badan. Halkan waxaan ku soo koobi doonaa 20 cunto oo ku muhiima inaad isticmaasho marka aad haysatid lamaane ama partner, kuwaas oo kordhiya awoodda qofka ragga ah ama dumarka. Awoodda ragga loo yaqaan libido iyo dumarka way kordhisaa cuntooyinkaas. haddaynu caafimaadnahno ma aha in laga xishoodo wixii ku wanaagsan ee muhiimad gaara ku leh. maanta barnaamijkan waxaan kaga hadli doonaa 20 cunto oo muhiim ku ah inaad isticmaasho markaad samaynaysid lamaanahaaga la kulmaysid. cuntada koowaad waa spinach waxay muhiim ku tahay inaad isticmaasho marka aad samaynaysid galmo ka hor iyo kadib. cunto kastaba waan ka hadli doonaa oo dib baan u faaqidi doonaa faa'iidada ay leedahay, laakiin cunto muhiim bay ku tahay. cuntada labaad waxaa loo yaqaanaa dark chocolate iyada aad bay muhiim kugu tahay inaad isticmaasho markaad samaynaysid partnerkaaga ama qofka lamaanahaaga aad la kulmaysid. muhiimad gaar ayay ku leedahay. cuntada saddexaad waa peppers ama waxaa loo yaqaanaa qajiga cas baa loo yaqaanaa. isagana inaad isticmaashay muhiimad ayay ku leedahay, aadna way kugu wanaagsan tahay. cuntada afraad ee la isticmaali karaa waa green tea ama waxaa loo yaqaanaa shaaha greenka ah, kaas oo isna muhiimad ku leh inaad isticmaasho waqtiga aad ku dhex jirto ama aad haysatid partner, oo faa'iido weyn ayuu ku leeyahay. cuntada shanaad waa oysters baa loo yaqaanaa. oysters isna muhiimad ayuu ku leeyahay inaad isticmaasho waqtiga aad leedahay marka aad leedahay partner ama tahay qof lamaana ah. cuntooyinkan 20 cunto mid kastaba faa'iidada ay ku leedahay waan ka hadli doonaa, laakiin inaad isticmaashay muhiim bay kuu tahay. cuntada lixaad waxaa loo yaqaanaa crab waxaa laga helaa badda. waa kalluun la isticmaalo marka aad leedahay partner ama lamaana aad leedahay. cuntadeena toddobaad waa ginger baa loo yaqaanaa. ginger ama waxaa u taqaanaan sanjabiisha faa'iidooyin badan bay leedahay, wadna ay wax badan ka tartaa. waxaan ka hadli doonaa inta cunto ee laga helo waddankeena unbaan si gaara u soo qaadan doonaa, oo mid kastaaba hormoonada ay soo daysay waxyaabay ka qaadato dib baan ka hadli doonaa insha Allah. waad la socon doontaa macluumaadyadan soo gelin doonaa halkan. cuntada sideedaad waxaa loo yaqaanaa pumpkin seeds baa loo yaqaanaa. pumpkin seedsku muhiimad buu ku leeyahay inaad isticmaasho markaad leedahay partner. cuntada sagaalaad waa banana ama muuska waad shiidan kartaa ama cuntada ku isticmaali kartaa. muhiimad buu ku leeyahay inaad isticmaasho marka aad haysato partner. cuntada tobnaad waa potatoes ama baradhaha dabiici ahaan waanu helaa. isna muhiimad ayuu ku leeyahay inaad isticmaasho marka aad haysatid partner, caafimaadkaagana uu wanaagsan yahay. cuntadeena 11aad ee barnaamijka ka hadlayno waa fatty fish ama kalluunka dufanka ayaa loo yidhaahdaa. waxaa laga helaa badeena, in la helana waa aad bay muhiim kugu tahay, laakiin cuntooyinkan oo dhan inaad hesho maaha. 2 iyo 3 iyo wax ka mid a dad hesho muhiimad macnaha ku kale ma raadin kartid, kuu filan. cuntada 12aad waa pesto baa loo yaqaanaa. waa cunto la shiito sida avocados oo kale, marka iyadna aad bay kugu wanaagsan tahay inaad isticmaasho markaad haysatid partner, aad haysatid qof lamaana ah. cuntadeena 13aad waa kofeega inkastoonu qofka wadna xanuun kale aanu u wanaagsanayn, haddana inaad isticmaashay muhiim bay ku tahay. dad wadna xanuun leedahay kuwa kala isticmaali kartaa kafee, waad iska dayin kartaa, waad iska dhaafi kartaa. cuntadeena 14aad waa steaks baa loo yaqaanaa. steaks aad buu muhiim kugu yahay inaad isticmaasho markaad haysatid lamaane. waa kalluun solan, waxaan laga helaa badaheena, waxaan loo yaqaanaa steaks baa loo yaqaanaa. marka aad bay muhiim kugu yahay markaad haysatid partner. cuntadeena
15 waxaa loo yaqaanaa tufaax ama waxaa loo yaqaanaa pomegranate baa loo yaqaanaa ama tufaaxa isna muhiim buu kugu yahay inaad isticmaasho markaad haysatid bartender. cuntadeena 16aad oo watermelon ama xabxabka. watermelonku isna wuxuu kordhiyaa hormoonada, isna aad ayuu muhiim kugu yahay, wuxuuna xiiso iyo interest u sameynayaa waxyaabaha aad sameynaysaan idin dhex maraya ayuu interest ku sameynayaa ama xiise gaara ayuu idin gelinayaa. isna waan ka hadli doonaa muhiimadda uu ku leeyahay insha allah waqti dambe. cuntada 17aad waa blueberry baa loo yaqaanaa. blueberriesna inaad shiidato inaad isticmaasho aad bay kugu muhiim tahay markaad haysatid qof bartender ama lamaane. markaad haysatid aad bay muhiim kugu tahay inaad isticmaasho. cuntadeena 17aad. cuntadeena 18aad waa nuts ama lowska mid dabiici dhulkeena ka helo iyo mid dibadaha laga keeno waa fiican yahay intaba. sidoo kalena waa la shiitaa, tooqadkaas laga saaro ayaa la shiitaa, sharaab ahaan ayaad u cabbi kartaa. waayahay cuntadeena 19aad ee kaga hadlayno barnaamijkeenan waxaa loo yaqaanaa garlic. waa loo yaqaanaa, waa inuu naqaanaa toonta, waa toon sida dabiican holaa idna laftigeeda waad shiidan kartaa, waana isticmaali kartaa inkastoo ay leedahay ur aan la jeclaysan, haddana waa isticmaali kartaa. cuntadeena ugu dambeysa oats baa loo yaqaanaa. isna muhiimad ayuu ku leeyahay inaad isticmaasho markaad haysatid bartender. 20ka cuntadan kasoo hadalnay wuxuu interest ama xiise u gelinayaa marka aad sameynaysaan intercourse ama aad xiriir sameynaysaan, inaad intaa isticmaashaan aad bay muhiim idinku tahay. insha allah waxaan ka hadli doonaa inta cuntee dabiiciya ee la hadlo aynu helo iyo muhiimadda ay leeyihiin iyo hormoonada ay soo daayaan ayaan ka hadli doonaa insha allah. daawadee subscribe iyo like noo saar insha allah. waad mahadsan tahay. mahadsanid.